waxaa saaka xarunta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho aanu kula shirnay dhammaan taliska guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybaha fadhiyada madax bannaan iyo saraakiishii hogaaminaysay arrimihii doorashada ee soo socday ilaa 2019 ilaa bisha daraad ahayd 14 bisha Abriil oo ay soo gabagabowday fayskii hore ama qaybtii hore ee doorashooyinkii dalka ka dhacayay oo muddada socday oo marba weji hor la yeelanayay ciidankii ka shaqeynayay ciidanka booliiska Soomaalida ee magaalada Muqdisho iyo dowlad goboleedyada ka koobnaa oo Ilaahay baa mahad leh oo wax lagu mahadiyaa inay 14 lagu dhaariyay magaalada Muqdisho xildhibaanadii ugu badnaa ee baarlamaanka 11aad iyo aqalka sare oo muxuu ahaa fayskii koowaad ee doorashada intii la dhaariyay Ilaahay u gartay inay noogu soo dhamaatay si amni ah. Ilaahay waxaan markaa uga mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala nala garab galay haddaanu nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed hawshaa dheer ee adkayd ee dadku uusan badidoodu ogeyn ayaa culayska ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay ama soo jeedka askarta booliiska ee dhibaatada ku soo gaadhay inaanu ciidanka booliiska Soomaaliyeed uga mahad celino anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska Soomaaliyeed saraakiisha iyo sareeyayaasha iyo labadii taliye xigeen iyo dowladda oo dhan inaan ciidanka booliiska ahaa ee hawshaa u soo dhabaradaygay ee halkaas soo gaarsiiyey inaanu uga mahad celino annagoo kaashanaynay oo iyaguna mahadda ay nala leeyihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ku nool oo intii hawshaa aanu wadnay 2 sano ku dhow muxuu ahaa garab taagnaa nala shaqeynayay gacanna siinayay la-aantooda ayaan waxba noo suuroobeen. waxaan kaloo iyaguna mahaddaas nala wadaaga hay-adaha amniga ee kala duwan ee dowladda federaalka Soomaalidu ay leedahay oo iyaguna dhinaca kale nala qabanayay hawshaa nala qabanayay iyaguna waa uga mahad celinaynaa waa inaanuna xusnaa maxaa yeelay keliya ciidanka booliiska keliya wax ma qaban kareen. waxaan kaloo kaga hadalnay waxaa lagu shiraa bishii Ramadaan oo maanta 15 aan u malaynayo ugu horreysay maanta noo dhammaanayso alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ciidanku aad buu u dadaalay habeenkii iyo maalintii waa la soo jeedaa waa meel dadku markuu afuraayo iyo marka la suxuuranayo iyo marka la hurdo ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo caasimad weyn oo dad badan ku nool yahay ciidanka u soo jeeda qaybtii hore waxay hadda u diyaar garoobayaan oo saaka kala hadalay in si nabadgelyo leh siday noogu dhammaan lahayd inta ka dhiman bishan Ramadaan oo aanu ognahay cadowga ummadda Soomaaliyeed inay isku dayayaan inay khalkhal geliyaan ama dhiig ku daadiyaan ummadda Soomaaliyeed oo sooman oo waqti adag ku jirta oo waqtigii jiilaalku uu ku dheeraaday dalka ay ka jirto inaan muxuu ahaa annaguna amnigiisa ay sugaan ciidankan oo runtii u dhabaradaygay howlo badan oo muxuu ahaa dadku ay garan karin ayay u dhabaradeegeen oo ay ku soo gaareen saraakiil iyo saraakiil xigeen badan baa ku dhintay iyagoo badbaadinaya ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa halka inaan muxuu ahaa Ilaahay uga baryo intii ku dhimatay inuu Ilaahay dembi dhaaf uga dhigo iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqeynaya ee maanta ku geeriyooday jihaadkaas aan iraahdo oo muxuu ahaa badbaadinta ummadda inteeda kale ah. waxaana kula dardaaranay waxaa la gelayaa dhowaan qaybtii labaad ee doorashada oo ma ay dhamaan doorashadu waxa uu dhamaaday qaybtii hore
oo aada u dhib badnayd inta dambe fayska dambena dhowaan baa muxuu ahaa isagana la gelayaa inay ciidanku u diyaar garoobaan fayska labaad ee hadda la gelayo sidii kii hore ay uga soo shaqeeyeen. waxaa lagu yaqaana ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidan hufan siyaasadda ka dhexdhexaada dhanna aan raacsanayn shaqadoodu tahay amniga inay sugaan amniga ummadda soomaaliyeed ama siyaasi ha ahaado ama shacab ha ahaado ama ciidan ha ahaado ama ganacsato ha ahaado ama culimo ha ahaado ummadda soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada muqdisho inaan muxuu ahaa inaan ciidankii booliiska ahaa ee hawshaa usoo dhabaradeegay ee halkaas soo gaarsiiyey inaanu uga mahad celinno annagoo kaashanaynay oo iyaguna mahadda ay nala leeyihiin dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho ku nool oo intii hawshaa aanu wadnay 2 sano ku dhow muxuu ahaa garab taagnaa nala shaqaynayay gacanna siinayay la-aantooda ayaan waxba noo suuroobeen. waxaa kaloo iyaguna mahaddaas nala wadaaga hay-adaha amniga ee kala duwan ee dowladda federaalka soomaalidu ay leedahay oo iyaguna dhinaca kale nala qabanayay hawshaa nala qabanayay iyaguna muxuaha waa uga mahad celinaynaa waa inaanuna xusnaa maxaa yeelay keliga ciidanka booliiska keliya wax ma qaban kareen. waxaan kaloo kaga hadalnay waxaa lagu shiraa bishii ramadaan oo maanta 15 aan u malaynayo ugu horreysay ay maanta noo dhammaanayso. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ciidanku aada buu u dadaalay habeenkii iyo maalintii waa la soo jeedaa waa meel dadku markuu afuraayo iyo marka la suxuuranayo iyo marka la hurdo ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho oo caasimad weyn oo dad badan ku nool yahay ciidankaa u soo jeeda qeybtii hore waxay hadda u diyaar garoobayaan waanu saaka kala hadalnay in si nabadgelyo leh siday noogu dhammaan lahayd inta ka dhiman bishan ramadaan oo aanu ognahay cadowga ummadda soomaaliyeed inay isku dayayaan inay khalkhal geliyaan ama dhiig ku daadiyaan ummadda soomaaliyeed oo sooman oo waqti adag ku jirta oo waqtigii jiilaalka uu ku dheeraaday dalka ay ka jirto inaan muxuu ahaa annaguna amnigiisa ay sugaan ciidankan oo runtii u dhabaradeegay howlo badan oo muxuu ahaa dadku ayan garan karin ayay u dhabaradeegeen oo ay ku soo gaareen saraakiil iyo saraakiil xigeen badan baa ku dhintay iyagoo badbaadinaya ummadda soomaaliyeed. waxaan rabaa halka inaan muxuu ahaa ilaahay uga baryo intii ku dhimatay inuu ilaahay dembi dhaaf uga dhigo iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaya ee maanta ku geeriyooday jihaadkaas aan idhaahdo oo muxuu ahaa badbaadinta ummadda inteeda kale ah. waxaana kula dardaaranay waxaa la gelayaa dhowaan qeybtii labaad ee doorashada oo ma ayan dhammaan doorashadu waxa uun dhammaaday qeybtii hore oo aada u dhib badnayd inta dambe fayska dambena dhowaan baa muxuu ahaa isagana la gelayaa inay ciidanku u diyaar garoobaan fayska labaad ee hadda la gelayo sidii kii hore ay uga soo shaqeeyeen. waxaa lagu yaqaana ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidan hufan siyaasadda ka dhexdhexaada dhanna aan raacsanayn shaqadoodu tahay amniga inay sugaan amniga ummadda soomaaliyeed ama siyaasi ha ahaado ama shacab ha ahaado ama ciidan ha ahaado ama ganacsato ha ahaado ama culimo ha ahaado ummadda soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada muqdisho inaan muxuu ahaa ay amnigooda ay sugaan. taasoo muxuu ahaa aanu kula dardaaranay inay inta dhimanna iyagoo isku duuban sidoodii ay dhammaystiraan oo ilaahay noogu gargaaro sidaasna ay noogu dhaalato dowlad ilaahay aan uga baryayno inay noqoto mid waajibaadkeeda gudata ummadda soomaalidana horumar iyo barwaaqo ayaanu rajaynayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.